bandhigaadu ballaaran looguna dabaaldegaya maalinta nabadda adduunka oo soo qaban qaabiyeen hay'adda Interpeace ayaa lagu qabtay magaalada Amsterdam ee waddanka Holland. bandhig sanadeedkan oo ay ka soo qayb galeen fanaaniinta in ka badan 52 dal ayaa waxaa Soomaaliya uga qayb galay fanaaniinta kooxda waayaha cusub oo ka dhisan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, waxayna wacdar ka dhigeen bandhiga goobtaasi ka dhacay. Somalia is the poorest country in the world. Failing leadership, poverty, and extremism have forced 1 million Somalians to flee to Kenya. This has caused tension between the two communities. But these following artists aim to unite all these people against their common enemy, the extremists, Al-Shabaab. And this is a very dangerous job. Some of our Somalian rappers even got shot because of this shot. But they're still alive and kicking, and they are here to spread their message of harmony with you. Ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? From Somalia, Wahaha Usub, and from Kenya, the Heebie-Jeebies tribes united.
dambeyntiina fanaaniinta kooxda waayaha cusub oo matalaya waddanka Soomaaliya ayaa saxaafadda dareenkooda uga warramay hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa la iska dhaafa dadkaaga loo dhinta dhulkaaga la fiirsada dhaxda waa loo xirta dhibaatada waa la iska dhaafa dadkaaga loo dhinta dhulkaaga la fiirsada dhaxda waa loo xirta غفورة أقسم بشيدة هذا النفا ولسان بلاي بلا هشيدة تربك هانيما نوف كان الهبي نقصك هانيما نريد هدير لا بدر نو وين نفتي نحن صاحر عيار نيشيدة دليل هدا يا نو تذر وحقو ديمت نقل خيديم نبت كاننا نتذر النهر وبردها كاري نحن دي سيدي والله ما أنت أدبن أفرح سنة هاي حيالي وحي إنتها أن سويني ما أنت إنا أنت سو ملايين الصومالية ما أنت على كنا ندوشة سا أنا أقول حنا أن ما أنت ما عرفتي ستيج كلا كورني أنا ومثلين قرنكي الصومالية أنت هذا أفرح سنة عاوة حيالي شقدي نقول أنا أقول ما تروح أنا أفرح سنة أنا ومجا صومالية مثلين بس نقرر قادنا هاي الحلاية runtii aad baan u faraxsanahay caawa waxa weeye waxaan soo gaarnay meel muhiim u ah Soomaalida in ay gaaraan ama message la gaarsiiyo waxa arkaysaan in stage aad u weyn oo dad malaayiin ay ka soo qayb galeen aanu caawa ka heesaynay kuna soo bandhigaynay eray ku saabsan nabadda oo fanaaniin konton iyo 6 dal ka timaaday ay ka qayb galayeen annagana aan u matalayna Soomaali waxaan u aragnaa guul weyn inaan Soomaali soo hiinay waxaan leenahay waxaan halkan soo gaarnay taageeradiina halkaas la ka wada waan arki kartaa fiidiyoda meel walba oo caalamka ka joogtaan caawa shucuurteena lama soo koobi karo aad iyo aad u faraxsanahay waxaan happy ku nahay inaan magacii dhammaan ee Soomaalida aan heerka gaarsiino waliba sida stage ku ruxay adiga fiidiyoosha ka arkatay annaga ah kooxda waayaha cusub oo matalayna qarankeena Soomaaliya oo ku dhibana meel walba joogan waxa heerka u soo gaarnayna waa shacabkeena waxaan leeyahay nabaddu waa shay muhiim ah nabadda hal lagu dadaalo dhibaatada waa la iska dhaafaa dadkaaga loo dhintaa dhulkaaga la fiirsadaa dhaxda waa loo xirtaa message-kaasi waxa amiis dab u imaanay taageerayaasheena bartaas laga soo Waayaha Cusub, I'm so sorry, I messed up your name, I'm sorry, we practiced so good, but he ripped it up the whole evening. Maybe next time. توفيق شرا موسى بنتلان TV مقالة أمستردام ودنك هولن